السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسر دوادا جيستوري تي في waxaan rabay maanta insha allah dul hayna gaarsiiyo inaan isdul taagno su-aal muhiima oo dadkuna ay beryahan amba intii horeba ay isweydiin jireen qaar badanna ay garanayeen su-aashaasi waxay silsilad amba la xidhiidhsan tahay waxyaabo hore aan usoo aragnay oo ku saabsanaa codsigii maxaan ku rahayne ay ahaa demande de visa en ligne kii aan hore usoo videogii hore aan soo waxaynay video kale waxaa jiray kolkaa codsigaa la waxaynayo su-aalaa jiray lagu weydiinaya amba waxyaabo badan inaad ka jawaabtid waxaa kamid ahaa maxaan ku rahaydeena waxaa kamid ahaa hébergementgii amba meeshii aad ku degaysay kolkaa dalka Canada aad imanaysay waxaan irahayd waxaa la waxaysanayaa waa réservation d'hôtel hotelka sidii loo waxaysanayay sidii loo cancel garaynayay yaan hore usoo aragnay videogaasi waa micnaynay ahayd waxyaabo badan baan waxaynay practicna waan waxaynay sidii qofka reer Djibouti meel kastaba ha joogay khaasatan kuwa jooga waxaan jeclahay kuwa Djibouti jooga amba heejadaha Djibouti ba meesha doontaba haato hadday holol tahay hadday casaamo tahay hadday muluud tahay hadday randad tahay hadday meeshay doontaba ay tahay bikaduus xayaabli meeshuu doonaba wax u baahan waxaan iraahdaa waa internet yar oo qura ayaa u haya isagoo waqtigii dee muhiimka ahaa ila gelinaya waxaana isagoo waxaynaya yaa videoga ka ku daawado iyo waxayn karayay hébergementga hore soo aragnay maanta su-aashan aan isdul taagayna waa silsilada taas taan bay la sii xidhiidhsan tahay waa comment faire une réservation de billet maxaan ku rahay d'avion pour votre visa de résident temporaire au Canada sidee buu qofku u waxaysan lahaa billet d'avion-gaasi ee loo baahan yahay ee lagu codsanayo visa temporaire-ka sidaad u arkaysiin ba halkan waxaad arkaysiin company Ethiopia hoosta dad egtin imaashkan hoos yaala imaashkan wuxuu tusayaa waa Ethiopia oo bahalkii biyayga lagu waxays biyaygii kolkay reservation-gii tanna waa website-koodii mid baan yar xasuusinaya halkan had iyo jeer waxyaabo badan oo practic aan ku isticmaalaa jira aan tuso publicity kama bixinayo taas waa muhiim tan aan doortayna kama dhigniyada ugu muhiimsan oo Canada amba ay ogolaataa maaha waxaa jira kompaniyaal badan oo kale arkaysiin baa jira Turkish Airlines waa ka waxaysan karaysiin Air France waa ka waxaysan wixii company tago ku dhan Djibouti intaan garanayo Air France way jirtaa Yamaniya jiraysay inaga iga garanay maanta inay weli ay jirto ay Djibouti tagto taas waa muhiim weyn inaad garatiin inay waxaan publicity ka bixin laakiin ani wax aan isticmaalo intii ugu dambeysay oo midda kalena waad arkaysiin aad iyo aad u fudud 5 minute baa lagu waxaystaa su-aashana waxaa hoos galaysa su-aashana ka jawaabayno amba aan waxaynayno practicana aan waxayn doono dadku waxaa hoos taala su-aal yar oo kale la weydiiyo qofka kolkuu codsiga dhiganayo visa-ga temporaire-ka khaasatan touristiga ma muhiim ba inuu biyayga lacagteeda bixiyo oo kolkaana dhigo codsigiisa uu ku darsado waa maya muhiim ma aha lacag ma niga khasaaraysa xilliga reservation qura yaa ku filan reservation-gaasina maanta waxaan joognaa waa 2020 baan joognaa xilliga waqtigana waa inaan lala socdo waqtiga maanta wax walba oo online weeyaan wixii ugu fudud baa had iyo jeer waqtigu gaarsiinaya wax walna ku fudaydinaya xilliga wada ila arki doontiin insha Allah hadana inaan ugu daalin bal hore aan u galno jawaabteedii su-aashaasi bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan yar xasuusinayaa waxa muhiim ah horta inaad garatiin halkan billet d'avion baan waxaynana reservation-gii laakiin waxa muhiim inaad garatiin billet d'avion-gan qofku daadad baa loo baahan yahay daadad wax la iska doorto maaha qofku waa inuu garto waxaan hore soo aragnay hébergementga waxaan nii qaabileynayo ama nii xasuusinayo qaybtan hotelka aan hore soo aragnay maanta waxa weeyaan way isku xidhan yihiin kolka aad tiri waxaan tegayaa dalka Canada halkay ku degaysaaba laga yahay hotel baa ku tegayaa 3 cishan yaan ku degayaa maalin baan dooratay ahayd sida uu xasuusinaysay mali juye baan maalinta application aan waxaynay ahayd laakiin maanta juye ma joogno 3 October baa maanta ka dhaqaaqayaa laakiin way kiibaalaan juye-gaan hore u doorto bay la mid tahay xilliga waxaan irahayd daadkaasi 5 bilood baa la siinayaa si jawaabaha la isku celcelinayo iyo demandkiina ay qaadan karayso yaan hore u soo niri kadibna daad baad dooranaysaa aad hébergementga maalinta aad hotelka imanaysid yani
xilligaa hoteelka maalintaad imanaysid Canada maalintaad hoteelka imanaysid waxa kale waa maalinta dalka Canada kusoo degaysid waa muhiim weeyaan xilligaa maalintaasi waa inay maalinta ay diyaaradaadu maxaan ku raahayeenay ay diyaaradda maalinta departka soo baxaysa Djibouti waa inay kugu qornaato arrivégaagu waa inay halka kugu qornaato departkaaga waxa ka dhigan tahay cisho ka hor haddii maanta oo kale waa 3 October bishii tobanaad 3deedii baan joognaa waxa ka dhigan tahay 2deedii waa inaad ka soo baxdo Djibouti saad u timaadid maanta 3 October saad u timaadid dalka Canada waa muhiim weeyaan xilligaa waan yar xasuusinaya qodobka ugu horeeya waxa ka dhigan tahay haddii formulairka maanta waxay 3 October waxaan niri qodobka labaad waa hotelkii yaan yar xasuusinaya waa 5 bilood baa la sugayaa 9 yaan isticmaalay hadda videoga reservation hotelka waa jour ouvrable baan isticmaalay laakiin dadku waxa dhacday kol inay isku khaldaan jour ouvrable waxa ka dhigan tahay waa 3 cisho waxa ka goynaysaa sabti iyo axad 20 cisho soo haraysa liga 10 cisho ka goynaysaa si dadku isku khaldin almost aan waxaan imikni dhigay 5 bilood waa easy weeyaan 5 bilood bish waa 3 cisho ku dhifo waa 150 cisho iyo noqonaysa okay kolkaad ku dirtid maanta waa October baan joognaa November December janvier février maxaa ku xiga mars liga waxa ka dhigan tahay waxay ku dhacaysaa mars bay ku dhacaysaa liga halka nazarkiisiin waan yar saxaynaa insha Allah aan ku soo laamo waa 3 mars bay ku dhacaysaa 3 mars bay ku dhacaysaa halka yar saxno waxweeyaan waxaan niri waa demontku waxaanina waa maanta niri oo ah 3 October liga dad 5 bilood xisaabisid waxay ku dhacaysaa 3 mars bay ku dhacaysaa 2021 waa dadka hébergementga aad hotelka maxaan ku raahidaan aad ku oranaysid aad halka aad ku xisaabsinaysid dad estimate aad oranaysid hébergementga uu bilaamaya aad oranaysid liga dadkaasina waxa weeyaan waa dadka dalka Canada aad imanaysid waa muhiim weeyaan aad iyo aad buu muhiim yahay xilliga hébergementga waxaan yiri 3 cisho yaan ka dhigaynaa 3 cisho waxa ka dhigan tahay waa 3da xilliga 2 avril baad ka dhigi waxa ka dhigan waa 3 cisho 3 bisha ilaa 3deeda tiraad waa 30 bay noqon laakiin cisho baad ka dhimi xilliga waxay noqonaysaa waa 3 cisho buuxinaysaa okay haddii halkan aan sii eegno waxa weeyaan halkan waa maxaan ku raahayeenay tan waxaan oranaynaa waxa ka goynaynaa waa 2deeda mars tanna waxay noqonaysaa inta u dhaxaysa waa 7 baan oranaynaa xilliga insha Allah duulaanay 7 hadda ka goysid waxay noqonaysaa halkan waxay noqonaysaa insha Allah duulaanay gaarsiyo 7 hadda ka goysid waa dhamaadkayga 25 baan oran karaysaa 25 mars waxaan ku halkan waxay noqonaysaa waa 3 mars bay ku buuxdaa halkan waa le 2 waa 07 oo intii gooris laakiin 7 ma ku goynaysaa halkan 7 waa 2 iyo 5 ka isku geysid waxay noqonaysaa mars ikasto mars bishi waxay ku dhamaanayso bishi ka horeysa mars waa février baan février waxay ku dhamaataa waa isoo sheeg waa 28 bay ku dhamaataa donc waa isla egeysin waa 7 ma u baahan tahay la 24 ba oran karaysaa waa 2 cisho marsiya dadka goysid waa 28 27 waa xisaabinaysaa xilliga 24 ou 26 amba 20 da au pire waxaad ka dhigi karaysaa 23 baa ka dhigan karaysin halkan xilliga hadday isla egtiin dadka saas kula eegnago dadka ugu muhiimsan haddaan yar xasuusiyo waa 2 October halkan iyaad maxaan ku raahayeen haddii Ilaahay ku gaarsiiyo 2 October maanta ayay joogtaa 2 October waxa ka dhigan tahay 2 October iyaad formulairka buuxinaysa waa muhiim waan xasuusinaya taas oo diyaar baa u tahay maanta inaad taabatid oo wixii document ku dhameey ku dhayin ka dhiganta xilliga waa kolka daadadka wuxuu ku dhan aad isla xisaabinaysid aad precisenaysid 5 bilood baad ku daraysaa waan niri waxay imanaysaa waa 3 mars bay imanaysaa ka xisaabinay ton d'estimation pour l'hébergement 3 cisho yaad ku daraysaa 3 cisho ku darsid waxay imanaysaa 2 avril yay imanaysaa yaan niri 2 avril kolkay timaado maxaan ku raahayeen insha Allah haddii Ilaahay gaarsiiyo kolka waa date d'estimation hébergementga tanna waa date d'annulation tan waa muhiim waan yar xasuusinaya kasto horeba waxayna maanta ma ahmiyadu inaan hotel hébergement ka sheekeeyo laakiin waa muhiim inaan ugu soo celiyo wad fahmaysiin halka iskaga xidhan yihiin hotelku iyo diyaaraddu si isugu xidhan yihiin man yar fahansiinaya tad date d'annulation inta ayna u dhaxayso waan niri waa muhiim xilliga intan kolkaan soo dhamaynay insha Allah haddii Ilaahay gaarsiiyo waxa nagu muhiimsana waa daadka aad imanaysid dalka Canada daad kolka maalinta aad imanaysid waa maalintu u bilaamayo hébergementga iyo hotelka
xilligaa waxay ka dhigan tahay estimationkan iyo muhiima okay haddaan halkan ku laamano intee kan baan yar saxaynaa kan waa 3 baan niri mars yaan dad halkan dad la aragtiin waa 3 baan niri ma dad 3 bay noqonaysaa yaan tan yaan ka dhigaynaa xilligaa dad depart kolkaa wuxuu noqonayaa inaad cisho ka dhintid bay ka dhigan tahay waa labadeed ayay noqonaysaa sidaas weeyaan waa inaad saa u aragtiin halkan waa muhiim weeyaan xilligaa inaad fahantiin reservation waxa weeyaan daadadkan aad arkaysiin daadad aan bis iska waxaysanayo aan sheeko maaha laakiin waad arkaysiin daadadkan waa isticmaalayaa had iyo jeer kooda waxaynaysiinaan waxaan nagula talinayaa had iyo jeer waa inaad haysatiin wax planification amba sidaa u socotid waa inaad muhiim noqod eegtid daadka aad imanaysid daadka hébergementga aad waxaynaysid waa inay wuxuu ku dhan isla xiriirsanaadaan muddo intaad sugaysid waa muhiim weyn waxaan nila qaybsanayo waa wax muhiima waxaa dhici karaysa adigo haddaad daadad aad iska doordoorto hadday dhacdo kolka dambe surprise baa kugu dhici waxaas oran adda daadkan baan doortay ahayd waxan baa igu soo dhawaaday amba kan baa kaa xumaan amba waxaa dhici karaysa in muddadii lagu soo jawaabi lahaa ay raagto xilligaa 5 bilood waa muhiim baan soo niri daadadka aad dooranaysid hébergementga maalinta aad imanaysid iyo maalinta bidavionkaaga aad guursanaysid maalinka horba yaan niri waxaad baska estimationka maalinta aad imanaysid hébergementga waxa weeyaan dalka Canada waa les 3 xilligaa le 2 waana Djibouti ka soo baxday inaad le 25 février ka soo baxdid ma aha haddaad le 25 ka soo baxdid xagga dhiganta intaa u dhaxaysa halkay ku degaysaa lagu waran su-aasha imanaysaa waxaa dhici karta xilligaa su-aal in lagu weydiiyo xilligaa waxyaabaha iska ilaaliya waxa weeye maalinta biyiga goostay waa inay tanaa maalinta hébergementga aad qaadatay inay maalin u dhaxayso waa inay maalin u dhaxaysa noqoto haddii kale Turkish Airlines waxaa maalin kol 2 cishay kol soo socdaan diyaaraduhu isla eega laakiin ahmiyadu waxay tahay maalinta imanaysa dalka Canada iyo maalinta hébergementgu waa inay maalin qoran noqdaan hadday noqon weydo waa iska ilow xilligaa meesheed galaysaa baa lagu oranaya xilligaa su-aashaas sidaad iskaga ilaalisid waa taas iyo waxaanaad arkaysid daadadkan oo ku dhan aan wixiyey waa sidaa waan siday isku dul dhacaan oo aad iskula eegta iswaafaqaan wax macquulana si u noqoto oo qancinaya qofka agentka immigrationka dossier-ga eegi doona insha allah xilligaa halkan planification waa soo waxaynay daad baan qaadanay daadka aad arkaysiin aan qaadanay wuxuu noqday 2 mars waan isticmaali doonaa iminka waxaan yar xasuusinayaa waxa weeyaan waa daadka aan yar xasuusinayo waa daadka waa muhiim weeyaan kaasina inaan igu yar daro waa qodobka waxaan oranaynaaba ka soo qaad qodobka saddexaad buu noqon karayaa waa date de retour waxaa oranaysiin waa 6 bilood caadiyan waxaynana waa 6 bilood xilligaa waa 6 mois buu ahaa daadkaas ku yaroo ka hooseeya baad waxaan 5 bilood baa soo joogaya haddaad tidhaahdid xilligaa mars maaha waan tirin karaynaa mars maxaa bish ku xigto waa maxay weeyaan waa avril mai juin juillet août septembre way ku dhacaysaa xilligaan waxaan oran lahaa anu daad baan iska dooran intaa u dhaxaysa 4 bilood baan iska dooran daadkaan dooranayna waxay noqon le 31 juillet baan iska qaadan 31 juillet 2020 xilligaa iniguna daadkaa doontiin bay noqonaysaa laakiin waxa ugu muhiimsan waa in ay waafaqsanaato demandkaad waxaynaysiin waa demand waxaa la yidhaahaa résident temporaire moins de 6 mois weyn waxayna anagu inaad xasuusanaysiin mooyaane horay videoga soo aragnay dib u eega demand en ligne kaa waxaynay waa moins de 6 mois waan xilligaa moins de 6 mois waa daadkii wax macquul wuxuu ku dhawo waxay inay isla xidhiidhnaan iska demande en ligne ma waxaynaysid plus de 6 mois adoo réservationka haddaa waxaysid wax 6 mois ka yar xilligaa waa inay iswada waafaqsanaadaan waxyaabaha aad waxaynaysiin had iyo jeer xilligaa waxay muhiim u tahay in had iyo jeer inaad haysatiin tableau de bord amba wax planification tusaya daadadkoo ku dhan waqtigaabaan baxayaa waqtigaabaan application dhiganayaa waqtigaabaan tegayaa dal Canada jawaabtaada waa inaad sii eegtid inta waqtiga lagugu soo jawaabayo hébergementga waqtigaad aanileynaysid kasal garanaysid waa muhiim waxaa ku dhan inay isla wada xiriirsanaadaan insha allah si aad way kugu dhicin khalkhal amba maxaan ku uraahideen amba lacag lagaagaba qaadanba insha allah ilaah nigaasho okay halkan waa sidaad u arkaysiin waxaan soo aragnay waa reservationkii billet d'avion daadkii waan haysanaa daadkii departkii sidaad u arkaysiin le 2 mars daadkii retourku waxaan nidhi waa le 31 juillet 31 juillet baan dooranay date de retourkii okay iminka waxaan tegaynaa insha allah qaybtii pratiga
ودي أركيسين إن شاء الله دولان جالسوا براتيجنا وحبتني كما قاعدنا يسوع كرتينا وقوة حينين وأركيا إنه من سلام إن شاء الله وحينيسين وأبدأ بنا شمر البيجا قادم مش أدونتين مش أدونتين بقوة جيبوتي كبحثن تركيا عم ماروك عم السنغال عم مش أدونتين مصر بها نقطة حيري جيبوتي مش دونا بجوجان بكوا حيسكرين تحسنا وأصلح جيون كو جيبوتي خاصة جوجنا ومبهني هبل ولا هبلاية كلا وحقوا حيسا أديك أسكوا حيسا كريا كان فيديو هنداوتي كدي إن شاء الله اللي قاو حن قلنا إن شاء الله قيبتم قلنا بحيتانكي waxa muhiim sameeyna haysatid vraiment sonnery adresse virtuelle waa courrielina haysatidun dadadkii aan hore u soo aragnay baan halkan ka dhaqaaqaynaa courrielkii geestolier aan hore u soo isticmaalnay si garanayseen xiliga halkan ma ka dhaqaaqaynaa insha Allah waxaan ku qoraynaa waxaan ka teginaa wadalka Djibouti hadda xiliga aan magaalaan dooranayaa magaaladiina dooran Montreal Toronto ku qoran karaysiin Ottawa ku qoran karaysiin Calgary ku qoran karaysiin Manitoba caasimadeeda haddaad doonayso ku qoranaysiin meesha aad jeceshiin dalka Canada ayaad ku qoran karaysiin aad u socotiin kama dhigno Montreal baad ku qoranaysiin laakiin qof walba meesha uu socdo yuu ka dhiganaya laakiin waxa ugu muhiimsan waxyaabaha daadadkan waxaas ka doortay maaha waad aragteen sidaan u soo xisaabiyo wax xisaab ku timiday xilligaa sida inaad u xisaabtiin baa inaguna loo baahan insha Allah okay maxaan niraahdaa halkan inaad xasuusinaysiin dad dib u soo laamano waxaan niri waxaan baxaynaa departkeena Djibouti waa départ de Djibouti waa waxaan ku raahdaynay waa dadka aan ka soo baxayno waa 2 mars date de retour keenuna waa waxaan niri dadkaasina waa 31 juillet okay haddaan qaadano bismillahi raxmaani raxiim soconaynaa 2 mars dans son nom 31 juillet waneri waxaan sameeynaa halkan wadarkiisii halkan waa doordoornaysiin waxa doonaysiin dad meel socod ciyaal la socdaan hadii maxaan ku raahaydeynay classka doonaysiin laakiin waxaan u lahaa economic class iska qaatay imkaan waxa waa reservation bad waxaynaysiin okay continue badan waniga arkaysiin insha Allah doondooni waxaan ku raahayday Ethiopia Airlines uu doondooni dadka ku dhammaanay eegayaa wixii imkaan amba disponible dad buu soo helay marka dad buu soo helay waxaan anagu eegaynaa waxa ugu muhiimsan had iyo jeer oo xasuusinaya dadka ad Montreal imanaysid amba degmada aad ka dooratay Canada ugu muhiimsan ka soo baxaysid okay ay ma iman karayna 3 mars waa muhiim 3 mars waxaan niri 3 mars waa inaan joogno halkan waan joognaa alxamdulillah waan helnay 3 mars okay dadka waan qaadanaynaa economic class waska qaadanayna okay bismillaahir rahmaanir rahiim ku soconaynaa laga mid dadkii aligi munisiimi ka retourki munisiin doonasana aan booking karsanna imika retourka anu le 31 juillet baan yiri waqtiga doonto waska noqoto okay retourku economic ma dib u qaadan okay waan yiri sugayna insha Allah okay intuu ku dhow dhameeyay waxaan oranaynaa continue ma oranaynaa هاي اوكي فلان halkan waa formulaire kiba bixinaysiin anu geestolier baan ku qoray bismillah middle name bay isticmaalaan laakiin u baahnidina halkan baan ku qoraysiin magaciina kale halkan waxaan oran geestolier dadkii hore waa dadkan iska geerinaysiin hore weligii buu isticmaali jiray waa 1977kii 6 bisha okay 27 juin ma sha Allah okay tanna waa bishii 6 27 dadkii rabaniga soo sheegay okay create hada doonis waa create but score waa ku klikiin hada doonis ku klikiin halkan number baan dooranayna Djibouti ma qaadanayna insha Allah number ma garanayo inay garanay lambarada laakiin anu number baan dooran ma garanay inuu jiro iyo inuu sax yahay iyo inuu khalad yahay laakiin mid baan iska dooranaya waa number easier inay garanay inuu jiro laakiin ahmiyadu ma aha imikahan inuu soo dhaco laakiin wax waa tusaalahan tusayo laakiin waxa ugu muhiimsan waa maxaan ku raahaydan waxa waa emailka uu nagu soo dhacayo uu nagu soo dhici doono reservation kaasba muhiim u ah gmail.com okay waa eegana in aan khaldamin halkan had iyo jeer waa inaad eegtid
inaad qalad aad gelin gmailkaagu inay isku sax yihiin waa muhim weyn waqti qaata hadii jiraan hore saan igu soo sheegayba ka fiirsada wax walba inaad taadirin waa oo aad iyo aad inaad dib ugu laamatid wax muhiima kale waxaa dhici karta bil aadan baan nahay waa khaldami karaynaa waa khaldantay laguma oranayo laakiin waxaa lagu soo celin inta lagu celinayn waqti baa kaa dhici hadii jeer u fiirsada dib baan u eeganaa wax walba inay noo sax yihiin waa noo sax maasha allah waxaan oranaynaa hore aan u soconno continue baan oranaynaa okay ya halkan dusha sarna waa ka arkaysa dib baa usoo laami karaysin haddaad dugtay qaybtaa dugtiin kolba qayb buu ni gaarsiin ya baashadii wuu imika doondoonayaa noo doondoonayaa formuleerkii aan dooranay insha allah ya siyaashka doorashadiisii yuu leeyahay laakiin muhim aan imika ahaan ima halkan ka fadhiisanayo diyaaradda adiga waxaan oran un continue meesha dugtidba fadhiisii adiga ku taala anu reservation baan uga dan leeyahay dantayda ma ka gaariyaa halka waxaan soo saaray lacagaha iyo kaar bixiya waxyaabaha u doortay siidkan kuwa kale aan dooran waxa kamid ah kuwa kale qaar baa ku qasbaya inaad reservation soo weeshid kaar visa aad buuxisid kuwana kuma qasbayaan xilliga aan waxba ma buuxinay kaar halka yar baa jirta dhexda yar arkaysiin kolka dambe book now pay later ba kornayaan tan waxa weeyaan kolka dambe haddaad doonaysid kolka baarkisa ama kolka dambaad yaad iska booking garaysanaysaa selectna maad oranaysaa waxaad oran halkan intood halka waa muhiim inaad tidhaahdid halka aad ku heshiisid waa agreementkii amba waa wixii xeerarka inaad waafaqsan tahay ood ogashahay iyo intaas ni sheegaysaa waxyaabaha ni sheegaysaa bay kamid tahay ila continue baad oranaysiin waa dhammaynaba imikadana wad arkaysiin waxa ay soo dhici doonaa reservationkii aan doortay aan booking gareeyay geesi tolyar hotelkiisii uu haystay hotelkiisii waa uu reservation yahay imikana bookingkiisii amba billet d'avion-giisii iyo haysta xilligaa labadaa shay ee muhiimka waa labada shay isku xidhan weeyaan wad arkaysiin insha allah labadiina waan waxaynay xilligaa waa kaa sadarkiisii wii soo dhacay sida halkan baad ka imprimaysin haddii kalena in yar baad yar sugi adinga arkay billet d'avion wixii ku dhan waa reservation-gii waan wixiyey waa yar sugaysiin in yar imikada yar buu inuu isoo dhici doonaa in yar baan iska yar sugaynaa imikada buu soo dhici doonaa insha allah billet d'avion-gii iyo reservation-gii waa nitusi isagoo soo baxay insha allah in yar baan yar sugaynaa بس كحنا وقت يغير قادم يبقى سوينا إن شاء الله دولاين جالسي انتاسنا أن يرسوينو وحان كوير لامنا ير مراجعيننا وحيابان سوارقني حقا maxaan yiraahdeen maanta muhiimadu sidaan horeba inii soo yiri waa inaan nitusay yahay maanta su'aashii ku saabsanayd sidee loo haystaa reservation-ga billet d'avion-ga si waxaan yar xasuusiyey hotelkii ahmiyaddan ka lahaana waxay ahayd daadka aan hébergement-ga maalintaad imanaysid dalka Canada ee hotel ku bilaamayo daadka baan muhiimada ka lahaa ahmiyadda intaas baan kala hadsan waxaan i xasuusiyey daadkiina waxaan nari waa mars baan kasoo dhaaqanay 2021 bay ahayd waa daadka inaad timaadid dalka Canada liga dalka Djibouti waxaan ka hadlaynaa waa dadka Djibouti badiga dadka Djibouti jooga ayaan ka hadlaynaa dalka Djibouti waxaad ka soo baxaysaa waa 2 mars dalka kale joogtina dalka kale waxaad ka soo bixi uun waqtiga aad dooratay waqti ka horeysa waqtiga imanaysid cisho ka horeysa baad ka soo bixi laakiin waxa muhiima parce que transit baa jira 3 cisho qaada soo dhoofaa jira 2 cisho soo dhoofaa jira muhiim waxa weeyaan waqtiga hébergement wayna joogta intaan ka retenaya dad retourkuna waa dalka dooranaysa laakiin formulaire demande maxaan ku raadin temporaire waxaynaysiin waa muhiim qofku way muhiim inaad garatiin waqt 6 bilood haddaad dooratay 6 bilood waa inay dhex gasho
haddaad dooratay 6 bilood wax ka badan waqtigaa aad dooratay waa inaad la eegi tiray toolka okay bal haddama aan ku yar noqono in ay noo soo dhacday maasha allah way noo soo dhacday inigan arkaya okay inigaa balan eego wixii isoo dhacay hoosta hoose bil iberimogaas aan yar tuso waa kan waa ka iberimogi oo dhan geesi tolyar waan tusi télécharger hop aniga arkaya iberimogi Mr. Geesi Tolyar wuxuu ka soo baxay oo August waa kama labada waxaan imanayaa halkan wuxuu ku dhawaaniga detailga arkaya reservation-ga halkan intuu jirinayo kolka aragsan qofku imanayo waa mars buu imanayaa waa anglais ama français oo ku waxaysan karaysaa doonaysa Wednesday march buu imanayaa 3 bish tub 3 buu imanayaa ilaa waa kan reservation-ga arkaysiin kullamida ubad u dirisiin ahmiyaduna aan yar xasuusiyo Ethiopia Airlines uma kadootii baa ku waxaysanaysiin laakiin waa in reservation baad ku dhiganaysiin kolka codsigiina waxaysanaysiin visa temporaire-ka visa touristiga loo yaqaano waxaad ku dhiganaysiin waa reservation insha allah waa taas su-aashii insha allah la weydiiyey amba jawaabteedii amba intii garanaysin insha allah adulaan iyagana waxay noqon doontaa waxay horu garanayeen buu noqonaysaa kuwa kalena waxay faa'iido noqon doontaa muhiimaduna waxa weeyaan videoga ka daawatiin hore baan igu soo sheegay iska waxaysan karaysiin waxba igama qaadan lacag gama bixin waxba igama gelin waqti baa iga galay laakiin waad aragteen wax badanna igama shan bil haddaba ka yarinba yaa galbas internet baad u baahantiin insha allah ka faa'iidaysi wacan waxaan ii rajaynayaa maalin wacan amba habeen wacan waqtigeeda inay tahayba wanaagsan insha allah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu